بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله تبارك جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله تبارك وتعالى وحليهي haddii aad isku daydaan in aad tirisaan nicamka badan ee alla uu idin galay, ma awoodi kartaan, mana koobi kartaan. kelimadeennana waxay ku saabsan tahay cunwaanu sacaada, waxyaabaha liibaanta laga helo. cunwaanu sacaada, adarayska laga helo sacaadada iyo liibaantu waa saddex. qodobka koobaad, addoonka ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu u nicmeeyo kadibna uu ku shukriyo. markuu u nicmeeyo kadib uu alla tabaaraka wa tacaala uu ka dhigo mid ku shukriya nicmada iyo nicamka uu siiyey. qodobka labaad, addoonka haddii intii la imtixaamo oo uu ku sabro, sabarkaasna wuxuu ka mid yahay adaraysyada iyo canaawiinta laga helo nicamka ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo sacaadada ilaahay. ma doonaysaa inaad sacaado hesho? ma doonaysaa inaad qalbiga raaxa ka dareento? haddii uu nicmo ilaahay kuu galo, ku shukri. haddii jidhkaaga, xoolahaaga, maalkaaga, awlaadaada imtixaan uu ku yimaadana ku sabar. waa cunwaanu sacaada. qodobka saddexaad, wa idaa adnaba istakfara. addoonku haddii uu dembaabo oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu istikfaar iyo dembi dhaaf weydiisto, ayadana waa cunwaanu sacaada. ara'ayta ma aragtay ayuha alcabdu alfaqiiru ila allah? ma doonaysaa sacaado iyo liibaan fi dunya waalaakhira? haddii ilaahay uu nicmo ku siiyo, ku shukri. haddii imtixaan uu kugu yimaadana ku sabar. haddii aad dembaabtana ilaahay u soo noqo tabaaraka wa tacaala. cumar ibn cabdilcaziiz khulafada shanta ah ayaa lagu tiri, afarta ah baa shan looga dhigaa. waxa uu dhihi jiray, nicmada ilaahay waxaad xarka ooga dhigtaan shukriga ilaahay tabaaraka wa tacaala. nicmooyinka ilaahay uu kuu galay waxaad ku xidhxidhaan ilaahay tabaaraka wa tacaala shukrigiisa. xasanulbasri oo aan taabici aada iyo aada u qiimo badan oo jaliil ah, wuxuu dhihi jiray, ilaahay hadduu qolo u nicmeeyo tabaaraka wa tacaala, ilaahay wuxuu weydiistaa shukrigooda ayuu weydiistaa, inay ilaahay ku shukriyaan. fa idaa shakaruuhu, haddii ay ku shukriyaan, kaana qaadiran calaa an yaziidahum, ilaahay wuxuu awoodaa inuu u siyaadiyo. lain shakartum la asiidannakum. kelimadaa u fiirsada, yuktabu bimaai dahab, qalin dahaba in lagu qoro ayay kelimadaa mudan tahay. qola hadduu ilaahay u nicmeeyo wuxuu weydiistaa oo ilaahay ka dalbadaa inay ku shukriyaan. haddii ay ku shukriyaanna, ilaahayna awood buu u leeyahay inuu u siyaadiyo. hadday ku kufriyaanna, wa idaa kafaruuhu kaan, haddii ay ku kufriyaanna, nicmadu way sii nusqaantaa xataa halkeeda ma istaagto. ibnu rajab alxambali oo taqaanal caalim min culamaai sunna ka mida, wuxuu kitaabkiisa lataa'ifu lmacaarif wuxuu ku dhihi jiray, wuxuu ku yidhi, kullu nicmatin cala alcabdi manna allahu fi diinin aw dunyan. nicmo kasta oo ilaahay addoonka uu u galo oo ilaahay uu siiyo tabaaraka wa tacaala, nicmada ha noqoto mid adduunyo ama ha noqoto mid diineede, waxay u baahan tahay shukri bay u baahan tahay. hadduu ilaahay waafajiyo qofka tabaaraka wa tacaala, tawfiiq min allah, hadday qofka ku degto alla uu waafajiyo oo shukrigii laga rabay uu la yimaado, ayada lafteeda waafajintaasi ayaa ah nicmatun ukhraa. waa nicmo kale oo nicmadii ilaahay tabaaraka wa tacaala, nicmadii uu siiyey alla tabaaraka wa tacaala, inaad shukrinteedana garato oo tawfiiq lagu siiyana, ayadana waa nicmatun ukhraa taxtaaju
إلى شكر ثاني أيضا لفت هذا أباها إن مر لما له الشكر ثم أيضا أصبح هذا وحي أباها تاين إلهي وكوزي يدنا يتبارك جل وعلا وحال الشيء أي علماء أي تلماما ننبو إلهي وحوكو امتحامي صدح الرموت هذه لدقيسته مرول بإلهي بان ادعونا إلهي بان كشيغنا فقرنا حول الآنتنا حنونك وحول بان إلهي مرول بأوغا على الله وحا هدان هيسان لها وحا هدين الله السين لها بان ودحنا ننبا ننكر فيري وإن لأيه إلهي تبارك وتعالى وحوكو ابتليي إن الآن كل يوم حنقررنا نعمة البصر إنها إلهي ونسيي وحا إنه فرديان إيا النعمة أينه فرديان إيا القيمة أينه فرديان قفل بواقرنا يا لكن إلهي تبارك وتعالى وكقاذي منك انت كلمة قعمانا وحكو قبصنا إن وحكو بحنا إنه إن لابا إنه إن كو نعمة لابدا قعمة قيمة انت نبينه فرديان كورما فرها الله هدي سألو تاقي لها كورما إلهي وحكا دقي انت صاحب نوضا ساء الله ميس قعنت نساو دير إلهي بهالك كسو الله تبارك وتعالى الله أكبر نعمة انت هدن لبدا قعمود إنو ليهين ننبو إلهي كقاضي لبدا قعمود هيا أيها الإخوة كورما ننك النوع عاسى إن أهلا قعمها هدو كدر سدين واللغلائه لغو انتاي لك بين نعمة أنو ليه الله يا وانين إن دالا ولا ليال وانين قعملا وانين لغلا نبا أسوى قلت مركاسو وحو أركي ننكي أو إلهي أو الشكرين يا نعمكو أقلي نعمة أقلي الله أيوكو الشكرين يا ننكي الشكرين يا باكما وانيكي النهلا وانيكي قعمها لا وانيكي لغها لا إريد أولها باديس يقولين وحولها الحمد لله الذي عافاني مما ابتلي به غيري وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا وحيري إلهي بام هذا إسكاله إلهي بكو شكرنا يا إلهي بكو حمدنا يا وحيري الله إعافيي إعافيي وحيا ربضا أو أريغا غيركي أما أريغا إذا أهين لغو ابتليي الله إعافيي وأريغا ما هذا إسكاله الله أكبر حيري إلهي إعافيي وحبضا أو بني آدم ككل عيو أذكر دي الله يعافيه وأذيك أيام هذا إسكاله الله يجسر ريسيه أما يجسر مريه أما يجس فضل بديسيه مخلوقات بدل أبورتينا إله أذيك أيام هذا إسكاله فتعجب الرجل نكي ولا يابي نكني وين لا يهي نكني واقع ملا يهي نكني والولا يهي هذانا وحكوا الله يا إريد أنور أسوة المعنى هذا من ينكب صوب قلبه وحيري محاد إلهي كو حمديسا تبارك وتعالى وذو شكريسا إلهي وحكا قاضي لبضا ذي إنه وحكا قاضي لبضا ذي قعمود وحكا قاضي لبضا ذي اللغوت محاد إلهي وذو شكريسا ومحيسه وحا إلهي تبارك وتعالى ضدبضا أذيقا وكاقسر ريسية وامح وحكويري ورنيه إلهي وحانا وذو شكرنا يا الله إسيي وفي صدى كلمات كان أنا أخريه وحيري يا هذا أشكر الله أن وهبني لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا الله أكبر عنوان السعادة الدريسك اللي هلو إيا عنوانك اللي هلو سعادة يلي بانت وحيري وحال الله أبو الشكرنا يا الله إيهبيي إيسيي عرب شكرين بدن الله أكبر عرب ذكر بدن حسد بدن وفيرسو عرب إلهي أنكو أمانه عرب إلهي كلمة أنكو أقري هذا الكيسة قرآن كيسة عرب إلهي أنو حمديو عرب إلهي أنكو حصو الله إسيي بان هرتو أبو حمدنا يا
انت كليا ما وقلبا خاشعا قلبي خشوع بدن او الهي اويه او الهي خشوعنا الله يسيبنا وحمدنا يا انت كليا ما وبدلا على البلاء صابرا شد كصبر يا مصيبه إيا دبك كو إيمانا يا الله يسيينا ونوغو صبرنا يا أوغو صبر ونوغو شكرنا يا محاد كقادتي ولكن يا مسلم كأو قصة المحاد كقادتي أذيك حنونك كو هيا إيا امتحانك أدوية كو دعضي مرك الله بربر دغنينكني انتي كتهي الحمد لله على كل حال وامدنا لقدونيو نعمة إلهي وكو قالي ماءها أو كليئة يا نعمة أديك أتركيسو إنه بلايا كان لحيي النعمة إنه عافيمات كان قاضينا والنعمة قالوا امتحابا يا دم بدافنا إلهي وكاغدك يا تبارك وتعالى أقص وختمه قصة كانوا أيضا عجائب بدن أو يا بدن نبأوي من أحد العلماء asagoo u sheeganaya xoolo la'aan iyo faqri asagoo u sheeganaya ninka caalimka dhageyso sida uu ninkan nicmada Ilaahay u xusuusiyo wuxuu yiri ma ku farax gelinaysa in indhaha laga qaado xoolaha doontana lagu siiyo marta markaas ilaa wallah maxay indhaha yaa bixiya indhaha qiimo intee dhan bay qofka muslimka insaanka ugu fadhiya bini aadamka wuxuu yiri ma doonaysaa in hadalka laga xiro afka dhan laga xiro carabka laga gooyo oo aadan hadlin xoolana inta doonta lagu siiyo ninka wuxuu yiri la wallah انظروا carabka nicmada uu leeyahay انظروا inuu nicmada ay leeyihiin waa ninkii hadoo kale wuxuu yiri ma jeceshahay labada gacmood in laga gooyo oo laga jaro labada lugoodna in laga gooyo xoolana inta doonta lagu siiyo markaas yiri la wallah markaas ninka caalimka wuxuu yiri hadaba miyaadan alla ka xishoonaynin الله مياذا كحشونين الله كون نعمي انت سو نعمه وهذا كل نفس هذا دوني ان كل نفسته الدنيا وها حوله هي العقل يلا فعرف الرجل هذا منك وحو قرتي الهي نعمديس انت دنت يسيد الهي او نعمه تبارك وتعالى وحونا غدغله مالنتا laga bilaabo inuu yahay mid alla ku shukrinaya tabaaraka wa ta'ala waliba ku raadi ah ilaahay qismiga iyo qaybta uu ka siiyay adduunyada wuxuuna yaqiiniyay asagoo 4 bilood iyo 10 habeen ah in ilaahay uu qoray wuxuu cuni lahaa iyo wuxuu cabi lahaa wuxuuna qalbigiisa ka go'aamiyay wallahi alladhi la ilaha illa hu inuu san adduunyada ka tagaynin asagoo dhamaysanin وحو عوني لها إيه وحو عابي لها أرأيت أيها المسلم محاكو قدبون سعادة ما دونيسا ليبان ما دونيسا كو قادة درسي جاني 10 كو قادة إلهنا وحان كبر يا تبارك وتعالى إنو قلبي جانا سعادة وكو أرزقه بدو ما سنتين إلهي درتي باردين جعله والسلام عليكم ورحمة الله